haddii aad raadinayso janno ku jirta meel ay tuuriyadaadu gaarto kana fog buuqa iyo sawaxanka magaalada fiidiyogan ila daawo oo indhahaagu ku arag quruxda dahsoon jawiga macaan iyo neecawda badweynta Hindiya ee xeebta Abaydhaxan. xeebta Abaydhaxan waxay qiyaastii Muqdisho ka fog tahay 12 kiiloomitir. dhulka Abaydhaxan waa raasi jasiirad oo ka ah sida laga arki karo khariidada Google. jidka isku xira Abaydhaxan iyo Muqdisho hadda dhismo ayaa ka socda oo laami ayaa la saarayaa taas oo ka dhigan in waqtiga lagu tagi karo xeebta uu intii hore ka sii yaraan doono. waxaan ku soo beeganay cirguduudka galabtii oo ay cadceedu markaas sii dhacaysay muuqaalkaas oo dad badan ay isla qirsan yihiin in uu qurux dabiici ah yahay waana xilliga ay suugaanleydu jecel yihiin inay ku matalaan quruxda haweenka ama dareen ka tarjumaya xasilooni wacdaro ama nabad. dadku badana Abaydhaxan waxay u soo dalxiis iyo tamashle tagaan inta ay cadceedu soo jeedo balse dadka habeen jecelka ah ama maalintii badankeeda mashquulsan waxay fursad u haystaan inay sidayda oo kale jawiga Abaydhaxan sharribaan waqti habeen ah. waxaa la ii sheegay in dadku ay xeebta ku caweeyaan ilaa 12 habeenimo. waxay ila tahay haddii dhulka u dhow Abaydhaxan uu deegaamoobo ama shiimoobo oo uu mashaariic horumarineed helo waxa maragmo doonto ah in Abaydhaxan ay soo jiidan doonto indhaha dalxiisayaasha gudaha iyo kuwa dibadda oo aysan waxba u ogaan doonin xeebaha kale ee dalka ee magaca dheer iyo xataa kuwa wadamada horumaray oo ay dadku badanaa ma jeertaan. Fayyo bidaka hele, isa show.